habli wax gali jiray habli wax goyn jiray habli wax gudi jiray goldalola iyo ceeb habli ka guban jiray hablahan gankoodiyo hilibkooda gadi jirin haddii aad gujaysaan gulgul kulaysan godol qura kumoodaan gabalkooda بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan asxaabta qiimaha leh ee la socotay kuna soo dhawaada sheekadii ayaan daran waxaan idin akhriyay qaybtii ugu horeysay ama qaybtii koobaad ee sheekada ayaan daran waxaan inoo mareysay kadib markii Canab iyo Ashley ay ka wada hadleen wiil markaas Canab ay doonaysay inay isguursanayaan taasoo ku sheegtay inay isguursan doonaan sanadka dambe marka ay fasalka 8aad ay ka baxdo balse wiilka Canab ay isguursanayaan oo la yiraahdo Qalib oo ah nin daacad ah ayaa markii dambe waxa uu ogaaday taariikhda Canab waxaana uu la kulmay raggii ay hore iyadu isu yaqiineen markaa kadibna waxa uu go'aansaday in uu isaga haro Canab ila caadile cidda ka khalqe cadka ka dhige ila caadile cidda ka khalqe cadka ka dhige calolkugu korsha ku culaysiye anu kuma caadin qaybta labaad ee sheekada ayaan daran waxay inoogu bilaabanaysaa sidan Canab waxay maalintii dambe ku soo kadisay Qalib oo aanay ka qasnayn oo la jooga gaban Canab ay hore sheekadeeda u maqashay ayna ku tuhsaneed in Qalib saaxiib la yahay Canab oo indhaheeda ilmo ay ku soo joogsatay oo careysan ayaa barsida kusujiif ah saldhigatay intay guriga dib ugu noqotay ayaa Qalib oo qoslaya intuu gabadhii soo kaxeeyay iyada iyo Canab isbaray markaa kadib Canab ayuu dibadda u soo galbiyay wuxuuna daalada ugu sheegay in uu yeesho saaxiibad cusub iyadana wuxuu ka codsaday inay ka harto oo mar dambe aysan gurigiisa imaan Canab oo kacsan ayaa tagtay guriga Ashley waxayna u sheegtay wixii qabsaday Ashley way qososhay waxayna ku tiri maxaa ka macno ah nin miyaad weynaysaa Ashley waxaa fikradeeda ku soo dhacay gabadhu waaba yar tahay maxaa badda gashay may iskuulkeeda iska wadato Canab waxay u soo martay inay gurigeeda u raacdo hase yeeshee Ashley hooyadeed ayaa maalinta ku maqneed gurigana cidla ayuu ahaa Canab oo laamiga taxi hodangeeya ku sugaysa ayaa waxa loo joojiyay gaari oo ay saaran yihiin laba inan oo midkoodna si wacan isu yaqiineen Canab way faraxday haye Cali ayayna ku tiri intay gaarigii hore u fariisatay Cali waxa uu sheegay inuu dhowr bilood raadinayay wuxuuna baray ninkii la socday oo magaciisu ahaa Cadaawe markii Cabbaas la kaftamayay oo loo dhawaado gurigii Canab ayuu Cali waxa uu yiri Canabey weliba sidii ayaa qaarta lagula hor joogaa intaanay jawaabin ayuu ku adkeeyay in caawa iyada iyo gabar kale oo saaxiibteed ah isaga iyo Cadaawe ay martiqaadaan Canab waxay tiri anigu waan imaanayaa hase yeeshee saaxiibadee waa miskiinad aan balad lahayn وملاين maayo hadii ay soo raacdo in ay faa'iido idin leedahay arrin waxaan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadeyni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haydu ahaatay aamin ay xusuusto arrin waxaan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadeyni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haydu ahaatay Cadaawe ayaa qosle oo yiri aniga waxaan ka helaa gabdhaha masaakiinta oo aamusnaanta badan bal adigu gacantayda ku soo hobso adaa arki doona sida aan u aqaan sida gabdhaha ugu loo godlay Canab ayaa Cali oo hinqaday inuu jawaabo hadalkii ka dhulsatay oo tiri oo macabsi gelinaysa gabadha xamar xisaab baa taal abuu ku warceliyay Cadaawe Cali oo muddo aamusnaa ayaa yiri Canabey inta aad gabar shaki ku jirta aad noo soo kaxaynaysid waa mid la hubo noo keentid intaan Canab hadlin ayaa Cadaawe yiri anigu gabar aan tii Canab sheegta ahayn maba rabo Cali iyo Cadaawe gaarigii ayay mootaysteen waxayna ku yiraahdeen Canab bye bye waa inoo habeen dambe 2 saac iyo halkan goor asar ah ayaa Canab islu taagtay Ashley oo hurda markaabay ku daartay raadiyihii oo ay ka socotay hees macaan oo magal qaadaysay markay toostay ayuu ku booday labadii daana ka dhunkatay oo ay ku tiri iska waran saaxiib riyahan kuma aragay soo inagii doorraadooda joogna ayay Ashley ugu jawaabtay waxaana dhex maray doodan Canab ayaa waxay tiri Ashley awal sidaan filaya wax barnaamij malid ay ila tahay
asli ayaa waxay tiri barnaamij caynkaasa ma lihi waxaanse doonayaa inaan soo booqdo habaryartay oo degan degmada kaaraan oo maxaa kaaraan fogaantiisa kugu wata tagsiba heli maysid asli ayaa waxay tiri koryeeri ayaan ka raacayaa afar ciidoodka canab oo ka baqaysa in hadalkeeda la maqlo ayaa intay ku soo dhowaatay asli ku tiri saaxiibay haddii aad ogaan lahayd caawa barnaamijka aan inoo hayo waad qosli lahayd intaanay hadalkii dhammaystiran ayaa asli farxad la soo booday oo tiri mar ruwayd fiican ayaa socotaa maya ruwayd maxay qiimo leedahay ayaa canab tiri waxaan shalay subax la kulmay wiil aan aad iyo aad isugu dheernahay muddo badanna aan isgoobaynay caawa ayuuna labadeennaba na casuumay wuxuuna wataa baabuur wuxuuna na geenayaa baarjoongal asli dhugmo uma lahayn hadalka canab waxaa madaxeeda ku wareegayay oo haddii saaxiibkeed casuumay may aado maxaa aniga dhexdooda ka samaynayaa anigu ma socdo ee keliga aad iyo asli jawaab niyad ka soo gaday ku tiri canab eragaasi aad bay uga naxday inkastoo aanay muujin waxayna tiri walaal macaan asli jilbahan ku haystaa hay ceebaynin waan ku baryayaa ballan ayaan qaaday maxaa ku jaban aniga iyo ii saaxiibkay waxaan garanin inaan ku casuunno waxba ha ka baqin waa loo baahan yahay in aan saaxiibkaa barto admakayga aad baratid asli intii hadalka canab ay dhegaysanaysay ayay go'aan qaadatay iyadoo leh mar haddii 3 qof aad tihiin wax xumaatahay dhici maayaan ee saaxiibtaa raaciya kaa caroone waa tahay meeqa saac ayaad ballanta leedihiin ayay tiri asli canabna waxay tiraa 8 caawa waqtigu waa dhow yahaye dhaqso u labiso asli iyo canab oo dharkooda kii ugu bilicsanaa qaba ayaa soo istaagay halkii ay ballantu ahayd oo ka soo horjeeday dugsiga dhagaxtuur ee shaneemo hodan gadaasheeda ku yaal waxyar kadib gaarigii ayaa yimid markaas cadaawa ayaa yidhi ballantii waad oofisay waa 8 oo gow ah cali ayaa markaa yidhi inakeena markii baabuurkii la fuulay uuna dhaqaaqay ayaa canab oo kursiga hore fadhida intay gadaal asli iyo cadaawo wada fadhiyeen u soo jeesatay ayay tiri farasho wanaagsan gabadhan waa saaxiibtay aan aad isugu dhimanno oo ruuxba ruux aan nahay magaceeda waxaa la yidhaahdaa asli isku dugsina waa nahay wiilashan waxaa la kala yidhaahdaa cali oo saaxiibkay ah intay madax ka salaaxday iyo cadaawo oo aan rajaynaya inuu saaxiibkaa noqdo markay isbartay ayay markaa hore u sii jeesatay asli ama kaag iyo aamusnaan ayaa ka soo haray waayo saaxiibteed uma sheegin ninka labaad xaggee aadaynaa idinkaa i xukumee ayuuna cali yidhi oo markaasi gaariga waday canab oo u hollatay inay tidhaahdo juungal ayaa cadaawo oo ogaa in baabuurka basiinku uu ku yar yahay dhaqaaluhuna iska liito oo aaqbada mushahar lagu jiro ayaa yidhi nageeya tribuunka intii gaarigu socday labalaba ayaa loo sheekaysanayay canab iyo cali hadalkii si fiican ayuu isugu baxay qosol iyo maad ayaana ka dhacaysay asli oo aamusnayd waxay ku ekayd oo qurah inay ka jawaabto su'aalaha la weydiiyo cadaawe markii nambar 4 laga soo leexday ayuu asli gacanta intuu duleedkeeda ka saaray xaggiisa u soo riixay asli oo xanaaqsan ayaa codar wuxuu ku tiri iyadoo weliba gacantiisa iska qaadaysa igantaa gacantaada jaalle haye iga raali ahow ayuu isagiina uga jawaabay intuu gacantiisii dib ula soo noqday waxyar kadibna waxaa la soo gaaray taleefoonkii waxaana markii la casheeyey loo soo noqday magaaladii asli inay degto ayay doonaysay hase yeeshee waxaa saaxiibteed ku adkaysay in guriga cali ay soo arkaan markii la gaaray hoygii cali oo ahaa firaaqo afartoodii waxay fadhiisteen barsada asli mooyee 3 kale sigaar ayay wada daarteen cadaawo oo kursi u dhow fadhiya asli ayaa intuu xabad sigaara shiday u taagay asli hase yeeshee asli waxay tiri mahadsanid anigu sigaar kama cabo Yeah.
laga roorin dhaqankii radkii awowgeen boholyaana lagu ridi runey walaaley hidahayaan la dhala rogin laga roorin dhaqankii rooyinkiinana waa soo dhaweynaynaa waadna ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad noola socotaan intaas ayaan daawadal waxaan ku soo gebagabeynayaa qaybtii labaad ee sheekada ayaan daran intaan qaybta saddexaad mar kale ku kulmi doonno sidaas iyo ammaano allah radkii awowgeen boholyaana lagu ridi runey walaaley hidahayaan la dhala rogin laga roorin dhaqankii radkii awowgeen boholyaana lagu ridi waxaanigayla roon wiilkugula koray raas reerkiin kugu daro ducana lagugu raacshaa waxaanigayla roon wiilkugula koray raas reerkiin kugu daro ducana lagugu raacshaa isku dhaqataan run rabbina kuugu daro khayr isku dhaqataan run rabbina kuugu daro khayr isku dhaqataan ka mid noqo oo ku soo biir saaxiibada Mustafa Show noqo mid ka mid ah taageerayaasheena ku xiran Facebook, TikTok iyo waliba YouTube-keena oo kala soco wararka Soomaalida, Koonfur Afrika iyo caalamka intiisa kale. Barnaamijyo diini ah iyo wacyigelin. Fadlan follow us, subscribe, like and share. Mahadsanidin.